ما أقبل كرنا محمد عبد الله فرماج أسوأ بورسدي سوته سود كي سوته أنا مقعب سو دل كان وحكة قلي أو رصاص مجران أساق مستفيدة يساك فايدست حسن علي خير هو سدوكان أنا قد دلك وحبان نقا قلي ما نقول إنه برضو طريقة وكسو عضوا خلدنتهاي عودينو عن كويدر راو في انجليز معي وش تاو ابي هو فرنا كلو كرسي انت لا خلاص لا my father opened my mother and closes another woman waxaa la socoteen gudoomiyaha inuu dhowr jeer shalay warbixin ka bixiyay safarkeennii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas sida gudoomiyaha uu sheegay aad ayaan uga xunnahay dalkan annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goorta uu doono marka waxaan u aragnaana nasiib darro in dawlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkaynaa tacaddi iyo jibin la jibiyay dastuurka oo dawladdu si bareera oo ula kaca u samaysay xaqna aysan u lahayn intaas marka halkaas rabaa inaan ugu gudbo waxaan rabaa wax yar dib aan kugu celiyo Soomaalinimada iyo dawladnimada Soomaalida iyo meesha ay ka timiday waxay ogtiin annaga 60kii xorriyadda qaadanay dawladda la soo dhisay dawladna waxa lagu dhisaa constitution sharci lagu dhisaa si hay'adaheeda ay u wada shaqeyn karaan si dadka ay midalayaan ay ugu adeegi karaan dawladda koowaad la soo dhisay ahaday waa dawladda aadan cadde Cabdirashiid ku xigay wala dilaaw naxariisto dawladda Maxamed Siyaad Barra ku xigtay waxay ahayd dawlad military 22 sano waxaan soo galnay waqti fawda laga soo bilaabo 19 ilaa 20 isku dayo badan la sameeyay dawladda caalamiga la soo dhisay wax badan la isku dayay laakiin ma shaqeynay dawladnimada hadda socota taariikhdeeda waxay ka soo bilaabanaysaa 2000 macnaha waxaan u wadaa nidaamka hadda socda nidaamkaas waxa lagu soo dhisay wax la yiraahdo 4.5 oo macnaheedu uu yahay dadku inay wax u qaybsadaan qabiil laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd dadku inay u gudbaan aragti siyaasadeed iyo dawlad madaniya oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed wali arintaas waxa loogu jiraa baadigoob meesha la soo gaaray marka 20kii laga soo bilaabo 2020kii iyo xilligan 2019 يعني انت مدحوينه isoo bedeshay iyo inta process la soo maray aad u ogtiin ilaaha ku mahadsan taariikhdaas qayban ka ahay aniga iyo dad badan oo kamida ujeedada ugu weyn waxa la saaray dadka Soomaalida helaano nidaam iyaga ay doorteen dawlad iyaga ay leeyihiin oo u adeegta iyaga waxa la socotiin waxa la sameeyay tanaasulaad fara badan waxa loo sameeyay waxay ahayd danaha ummadda Soomaaliyeed in la xaqiijiyo in qof walba Soomaaliya uu dareemi karo sharafta dawladnimadiisa ku sharfanaado ama mas'uul ahaado ama qof caadi ah ahaado ahwaal xaqiijiyay waxna waa dhiman yihiin marxaladda hadda la joogo waa marxalad aan rabno dalku inuu aado axsaab siyaasadeed laga gudbo 4.5 dadku ay ahaadaan dad afkaar siyaasadeed ku midoobay يعني isugu xireen deegaan iyo qabiil ay ku tartamaan afkaar siyaasadeed si ay codka ay rabaan u helaan kadibna laga sugaayo wixii ay balan qaadeen inay fuliyaan dawladdan hadda jirta ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo hogaamiyo waxa wax loogu dhiibay doorasho waxa loogu dhiibay dastuur waxa uu farayo madaxweyne Xasan Sheekh ka horeeyay
isagoo awoodii haysta oo ciidamada xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta wuxuu ogolaaday inuu yiraahdo waa la iga guuleystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka taas maxaa bays u ah waxaa bays u ah dastuurka waxuu nafarayaa 4 sanaba in la helo oo la qaban qaabiyo doorasho cidii ku guuleysta xilka lagu wareejiyo lana shaqeeyo la caawiyo inta karaana madaxweyne xasan sheekh waxaa ka horeysay dawladeedii oo runtii nasiib u yeelatay inay dhowr iyo 40 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale ana awoodi kara inaan dariiqo badan maro waa la iga guuleystay madaxweyne xasan sheekh aan ku wareejiyay waayo waxa soo dhan ay u dhacayaan su'aasha muhiimka taas waa haddii madaxweyne farmaajo oo madaxnimada jecel yahay xasan sheekh waa jecel yahay aniga waa jecelahay kuwa kale waa jecel yihiin laakiin ujeedadu waxa waaye in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka haddaan meeshaas xoogaa yara kaftan geliyo aniga waxaan ahay nin jabhada oo wadaada oo xaalkiisa ogtihiin marka waa la iga filinaya inaan xukunka ku dhigo marka aan doorashada sameynayana talooyin badan waxay soo gaarayaan ruuxaan dib isaga reexa baashaan hore u soco waxaan dhahay maya ma sameynayo laakiin shayga qariibka waxa waaye ruux maraykan ka yimid ruux ka yimid Yurub oo le 30 sano soo joogay inuu maalin walba sharciga garab maro arrintaas arrin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada ee marka dalka la isku hagaajiyay la yiri ku soo dhawow lagu doortay ee garbaha laga istaagay maanta lagama aqbalayo inuu yiraahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu cadaado ana garoonka waa la iga reebi karaa laakiin alshaa la iga reebi karaa waxa la iga reebaa sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa u socdo qaraabo salaana u socdo siyaasadda u socdo islaan ari raacaysa hadii ay wado tiraay imadan ku qanacay inaan u tii karaa rabaani waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo dawladda 24 saac la soo dhaafay waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda maxaa khaladka aniga la iga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunaqabatay waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligeena doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro marraba aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Axmed iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhex galo laakiin hal shay rabaa inaan idin sheego Jubbaland marka doorashada laga sameeyay aan dhaho Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada yaa qaban qaabiyay dawladda dhexe ma qaban qaabisay mise reer Puntland qaban qaabiyay yaa igu jawaabi kara Puntland maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland bal ii sheega labadooda sharciga u ogolaanaya inay doorasho qaban qaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabiyeen mid madaxweyne waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaye xataa haddii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan maxaa ka soo bixi kara tilaabaha khaldan oo dawladdu ay qaadayso waxaa rabaa marka inaan u laabto dawladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamto cidda koobaad oo sharciga lagula xisaabtamaayo muwaadinka ma aha waa dawladda sharciga lagu doorto hadday ixtiraami wayso macnaheeda waxaa dawlad ma jirto inta jeer dawladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma laha haddaa fiirisid mu'asasaadka dawladda ama institutionada dawladda ama hay-adaha dawladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka maanta awoodna uu leeyahay su-aashaas adinka idin weydiinaa Soomaaliya inuu intuu fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo waxa ay la taas soo saar awoodna uu leeyahay maya صح waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa cadeynaya arrintaas sheegaya waxa cadeynaya gudoomiye Jawaari
iyo dowladdu waa isqabteen in baarlamaanka la koontaroolo darteeda jawaari loo rida saas ma ogteen mise uma ogidina haddana dowladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dowladdan waa dowladdii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dowladdan see loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda dastuurkii la rabay inay dhammaystiraan ma dhammaystirin hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada muqdisho waa ogtihiin iyo dalkao dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka ka mid ah in shabaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka hadlaa miyaa aragteen dowladda waxa laga rabo inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso ayadoo raacaysa sharciga waxaa laga rabay amniga inay sugto aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilanta waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraayo magaalada dhan waa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xurana ma jiro soo dadkan yay u adeegayaan aan isweydiino cidday u adeegaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasiyaa tahay sharcigaa ku ogolaaday aan hogaamiso kan isla sharcigaasa wuxuu u ogol yahay inaa mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldan tahay waxaa la socotiin siyaasiyiinta ama axzaab ha noqdaano ama ha noqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal carku waa kaasi sheega maamul goboleed xur ah oo go-aankiisa qaada kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro jubbaland isma hayaan puntlandna isma hayaan galmudugna waxa ka socdaa waad ogna hirshabeelle waxa ka socda waa ogna baa iyo bokool waxa ka dhaca waa ogna marka yaa loo shaqeynaa dowladdan yaa u shaqeynaysa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo anigu waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dowladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar la yidhaha xataa heshiisaa dhex maray ma aha sidaas aniga dowladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaayo maxaa yeelay waqti a iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayey kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayey yacni inay degdeg ama si khalada wax u halaabaan ma rabo marka anigu waxaan ku jiro dadka dhahayo dowladda 4 sano loo dhaafo okay 4 sano loo dhaafo haddaysanba ogolaa karin waxyaabaha xorriyaadka asaasiga oo dadku ay leeyihiin doorasho annaga iyaga aan wada gelayno soo wada geli karnaa bal ii sheega garoonka magaalada muqdisho waxaan u malaynaa dhowr iyo 10 sano inuu xirraa markii maxkamaduhu furayeen sax wala la 15 sano dowladdii ku meel gaarkaada aan hogaaminayay waxay ku guulaystay ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo degi karo garoonka intaas iga soo gashay haddii aniga loo ogolaa waayo cidda loo ogolaa kara bal ii sheega waa su-aal oo maxaan u socdaa aniga waxaan u socdaa kismaayo dowladda waxay la yeelan kartaa inay tidhaahdo waxaasaan ka qabnaa annaga raalli naga ahaaw waxaasa samayna waxaan rabaa noqdo muhiima inaan u gudbo ma og tihiin horta dowladda iyo aniga sharciga inaan u simanna waxaan u wadaa dowladda iyo muwaadiniintu sharciga waa u siman yihiin sharci dowladda waxuu siinaa sharciga awood iyo waajib anigana waxuu siinaa awood iyo waajib ka muwaatin hadduu sharcigu ii ogol yahay kismaayo inaa aado kismaayo meel gaara ma aha soomaaliya hadduu ii ogol yahay dowladdana waa u ogol yahay garoonkaas haddii farmaajo uu ka bixi karo xaq uu leeyahay anna waa ka bixi kara way fahmaanta umalina hadduu sharciga ii diida asagana waa u diidaa macnaha waxaan rabaa inaan fahmno waxa la isku haya waa sharciye 4 sano madaxweynaha kama hadlaynaa dhahana waa ogolna laakiin muxuu sameynaa madaxweynaha dowladdiisu maxay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan waxa sharcigu ogol yahay hadday ka leexdaan marka maxaa dhici kara waxaa dhici kara dowladnimadan ay burburto maxaa yeelay dalkan weli dib u heshiisiin dhaba iyo wax la isku ogyaho adag oo dowladnimada Soomaaliya beys u noqda ma jiraan oo ogtiin sida wax ku soo wadnay waxa lagu soo waday
tan bal fiiri wartanna fiiri hadday naqato anaa lay doortay oo waxaan rabaan samaynayaa waxay furaysaa khad aan wanaagsanayn dowladda marka waxaan rabaa inaa ilaa ka jooga meesha aad ku socotiin sharciga hareer maraysiin ka joogta waxaa laydinku ixtiraamayo waa sharci maxamed cabdulaahi farmaajo asagoo hoteelkan aan iga fogeyn degan aa madaxtooye lagu wareejiyey ma soo beentay maxaa loogu wareejiyey xoog maa loogu wareejiyey xasan sheekh isla hoteelkan asagoo deganaa lagu wareejiyey maxaa loogu wareejiyey sharcigii qofkii lagu doorta hadduu ixtiraami waad ixtiraamaysa horta ma la arkaa danna soomaaliya uguma jirto hadday marka dowladdu waajibkeeda garaweysay ka gaabisay hadday sharcigii burburisay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed iyo dalkan ummado badanaa dhaqaalo ku baxshay inaan la hadlo annaga waxaan u dagaalamaynay oon u tanaasulaynay waxay ahayd dowladnimo soomaaliyeed ma u muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab lala diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura uusan jirin waxa dhala kara waa gara karti annaga ma rabno inta aan iska aamusno markay waxa laabaan inaan indhaha taagno dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka soomaaliyeed waxaa laga maarmaanayna intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxaa igu dhaca basiid waa waxaan ka tegi karo wax ka weyna halaysa waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysaan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan axsaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa u diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaho Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sidii loo badbaadi lahaa maxaa yeelay sharci darradan say u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasabaro haystaan oo baxayaan meeshii rabaanay aadayaan caruurtooday aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnaa danahooda in la fuliyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan umaleynaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga caddaado dowladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dowladda inay burburto kama aqbali karno maxamed cabdulaahi farmaajo asoo boorsidiisa wato suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideysta xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogo inuu burbur dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid Soomaaliya isu timaado mahadsantiin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.